guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta xarunta golaha guurtida Soomaaliland mar ay ku hadlayeen waxay ka hadleen sixir bararka baasan ee afayay ummadda Soomaaliland sidoo kalena waxay ugu baaqeen bulshada Soomaaliland inay u dhagalugnaadaan go'aankii ka soo yeedhay xukuumadda Soomaaliland ee ku aadanaa in muddo 40 cisho gudahood lagu fulin doono inay shaqeyso shilinka Soomaaliland sidii loogu talagalay sidoo kalena ganacsatada waaweyn ee dalka Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay ka shaqeysiyaan shilinka Soomaaliland oo ah mid haatan gabaabsi galay waa kuwan iyagoo amurahaasi ka hadlaya waxaad arkaysaa qof waliba hadduu basaaran yahay hadduu shaacabayo hadduu baash saad uun buu isticmaalaya saadka laftigiisa Soomaaliland ku shuban maayo waa dollar baa ugu jira waxaan leeyahay shicibka dahab iyo maxay ahayd toysaad 45 ka casho loo qabto wixii 100 ka yar idinkuna sida ula qabsataan si isticmaal lacagtiina Soomaaliland sida calankiina u jeceshihiin lacagtiina u jecelaada muwaadiniin dhaba noqda oo muwaadinimadu waxay ka bilaabmaysaa inuu qofku lacagtiisa jeclaado aanu subaxii ku soo kicin dollar isagoo ku mahamiya islaanta tamaandhada iibinaysa ka kale mid walba waxaan oranayaa oo aan halkan uga soo jeedinayaa aynu ku taageero xukuumadeenu arrinka ay qaadatay dhibtu markay dareento waa in la fahmaa sidee looga bixi karaa ee dhibta loo xalili karaa laakiin sidee baa loo dabooli karaa inaan loo fakirin sidee looga bixi karaa waxa weeye sicil bararku ku jira cid walba wuu taabtay annaguna taabtay nin waliba waa dareemaya anigu qof ahaan markii aan fakiray waxaan idhi alla ilaahay soo bixi kartaa te mushaarka qaato waxa uu bedelin dollar maxaa dollar ka farta dollar uma bedela anigu lacagtayda mushaarka qaato gurigaan igtaa maalin walba 5 iyo 10 la soo baxa sidaasaan u isticmaalaa waagii hore laakiin bangiga dhexdiisa ayay noogu bedeli jireen oran jireen dollar qaado hal la joojiyo dollarkan waxa laala iyo wixii mushaar qaata in ay isticmaalaan lacagta Soomaaliland oo hawlgeliyaan oo bangiga ay ku noqoto oo ay bangiga ka qaataan oo ay shacabka gasho ay dukaanka gasho mid walba sidaas ayaa bahalkii hoos ugu dhacaya dawladuna waxa weeyaan waxay ku jirtaa waxa la yiraahdaa arigiisa bahal ku jiro lama yiraahdo waa la orodarano in la yiraahdo mooyaan ayaan darano in la yiraahdo mooyaan orodarano lama yiraahdo waa isagu waxba akhran maayo waxa akhranaysan ma jiro wanuna lacagteenu halka ka soo waqtiga soo baxday halkii joogtay 500 lacagta imka maanta ayaan koob shaah goynaynin 50 kun oo shilin bay 500 waa ku isticmaalay waa run inagu ma halka gaarsiinay ilaa cid kale uma imanin waxyaabaha anigu isweydiyo waxa kamid ah malaha khaldanayana garan maaye lacag kuna iyo waxa imka socdo kaliya hatay lacagtii 5 ku rahay boqolkii xaq u maray haddaan dadka ganacsatada yar hoose weydiinayna war sarifka baan ku celin lahayn oo baashi ma haynay Axmed Khalid Farax iyo Maasim Yare Ariel TV Hargeysa